بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبرا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن sanadkii lixaad hijrada nabiga calayh isalaatu wasalaam markuu ka soo hayaamay maka laga tiriyo oo madiine yimid sanadkii lixaad waa kii hadda nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam isaga iyo 1400 saxaabadiisa la soo cumraysteen oo madiine kala soo kaceen markii ay xaramkiiba u muuqday meel xaramka ku dhegan oo la oran jiray Xudaybiya halkaa markay soo gaareen waa kuwii nimankii markaas haystay maka oo markaa mushrikiin ahaa oo boqorkoodu uu ahaa Abu Sufyaan waa kuwa u diiday inay soo galaan masjidul xaraam oo kacbada dawaafaan oo camalkoodii ay gutaan cumrada oo kuwa iska hortaagay siirooyin fara badan baa jiray waqti uma haynee alxaasil waxaa lagu heshiiyey nabiga iyo mushrikiintii calayhi salaatu wasalaam 10 shardi hudna la yiraahdaa ma mudahana heshiis meel ku gaara way 10 sanadood inaanan isku soo duulin oo adinka maxamedow muslimka sheeganaya oo madiina fadhiya anaga aan maka fadhina boqorada inaanan isku soo duulin silbad gelino waxaa kamid ahaa markaan wadan leena maxamedow wixii adiga xagga kula jooga aad ka timid oo madiina wixii ka soo baxa diintaada aad sheeganayso tawxiidka oo anaga noo yimaada hadaan ma ka joogno inaanan ku celinayn kuwa anaga naga fakara oo halkaan ma ka tago madiina kugu yimaadana oo diintana ka baxana oo diintaada qaatana inaad noo soo celinayso markaas lama kala saarin ragga iyo dumarka ragga gaar ahaan maaragta weeye waxay ku dhacaysaa gabdhaha muslimaadka kuma jiraan iyo waa isku jiraan rag iyo dumarba oo wixii soo ridooba adiga ka soo noqda waa anaga noo yimaadana ma ku celinayo diinteena shirkiga soo gala
wixii annaga naga tago oo diinteennan ka baxana oo diinteeda maxamed galana maaragta waad noo soo celinaysaa rag iyo dumar laguma kala sheegin markaas shuruuddaasaa lagu kala tegey oo lagu kala tegey nebigu markuu madiine tegey oo ku noqday calayhi salaatu wasalaam oo sanadkii 7 cumradii qallada ahayd loo ogolaaday soo gutay 3 maalmood ka bacdi waxaa soo gurmayey dad muslimiin iyo muslimaad ah haweenka meeshaan lagu sheegay oo ayadan ilaahay ku sheegaya marka isku mar ma ay ahayn sida saxiixa ah 2 mar yimid iyo 3 mar kuwa yimid iyo 5 kuwa yimid iyo mid mataqaana 2 walaalaheedu ay soo raaceen iyo oo rag ay dumarkaasa waxay isugu yimaadeen Madiina dumarkaas gabalkood marka rag baa qaba way caruur u dhaleen oo maka joogo mushrikiin iyo mushrikaad isla ahaayeen gabalna lama qabinin raggii marka ay ka soo fakadeen muslimaadkan oo ahlu naarimada ka soo baxeen Madiina ugu yimaadeen rasuulka saxaabada oo tawxiidka qaateen raggii qabay baa ka daba yimid waxa la maxamed oo hada ballankeeni waad garanaysaa waxa annaga naga soo fallaagooda ku yimaada diintana ka soo baxo taas oo inaad noo celiso watii qoraal ahayd marka noo celi baa leeyahay haweenkan haweenkeennii naga qabnee noo celi baa leeyahay nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam dumarka muslimaadka kuma jiraan dumarka muslimaadka kuma jirin saa awgeeda leena celi maayo maxaa yiri rag baa yaaba la celshiba ilaa raggaas uma taqaana waa rag xoog leh oo ka faka karo meel kasta ka imaan kara iska dhici karaya waa rag laakiin dumarku wada ogtahay waa nugul yihiin hilib bisil weey waa masaakiin marka nabigu wuxuu yiri kuma jiraan haweenku waxaan inay celinayno kuma jiraan arrintaa markay saa u dhacday oo la isleeyahay hadda maxamed shardiga waa ka baxay diin kuma socdo in nabi maxamed run sheegay ay ayadan soo degatay marka saas uu soo nusuulku waa sidaas ilaahay baa u rumeeyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu riyaa ayuha alladina aamanu ilaahay rasuulkiisa raggii rumeeyeen oo nabi maxamed aad u horeysido idaa markay jaakum adinka inay yimaadaan almu'minaat haweenka mu'minaadka markay madiina in ku yimaadaan oo ka soo cararaan mushrikiintii maka joogtay muhaajiraatin xaal ay yihiin muslimaadkaas kuwii ka soo haajiray min Makka ila Madiina in ku yimid kuwaas haday inay yimaadaan famtaxinu imtixaamu ilaahay mu'miniina imtixaamahunna muslimaadkaas muhaajiraadka imtixaam waxba u celimaysaan mushrikiinta adinku imtixaam marka waa la imtixaam Abdullah ibn Abbas wuxuu leeyahay waxa lagu imtixaan inay ku dhawaaqaan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasuulullah laakiin سيرة كلا وحيلة عمر بن الخطاب حلكاس نبي محمد وحلصار عليه الصلاة والسلام هو يري متكست كلها قبل مسلمات كمهاجرات بالله ما خرجت رقبة بأرض من أرض بالله ما خرجت بغضا من زوجك بالله ما خرجت التماسا دنيا بالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله أساسه يقول امتحاني عمر بن الخطاب سقى لو وكاش هو وكاش عليه السلام إلهنا كود دار شيء يعني متى أنا دول آتنا عضو مكة يجعل أدجعلاتي مدينة يد الصوب حدا إله بان كود داريه عراء نكا وعراء سنيد مياد وقصوا فقط إلهنا كود داريه الدنيا مياد رادنيس ماشى حق أتكوسي إنها ماشى كهشو إلهي بان كود دار شيء إلهي دراد اسمه يوحكى لكم الصبحين مركاسي هاهل هاي إلهي رسولك سجعل أن جعلنا هاي يعني سبع شيء بس وكو قول اسمك انت حامك ولا اسمك
marka ilaahay wuxuu yidhi casa wajalla subxaanahu wa tacaala adinka imtixaamkaas geysta imtixaamkaas gabdhaha u geysta kaliya intaasaad yani mataqaana adinku ku xaqiiji kartaan yani mataqaana daahirka iimaankooda allahu ilaahay baa aclamu ogaansho badan biiimaanihinna gabdhahaas muslimaadka oo muhaajiraadka iimaankooda qalbiyaalkooda ku jira alla kaliya cilmi kule adinku shuqul kuma lihi laynima dirsan ogaada laakiin wixii ka soo baxa afkooda kaliya ayaad ku imtixaamaysaa fa in calimtumu haddaad ogaataan marka mu'miniinay hunna gabdhahaas muslimaadka gabdhahaas mu'minaadka oo muhaajiraadka mu'minaatin kuwa oo ilaahay rumaysan waa musadiqaatin billahi wa birasuuli wa bikitaabihi wa bilyawmi alaakhir fain calimtumu haddaad ogaataan muslimiinay hunna gabdhaha muslimaanta hunna gabdhahaas mu'minaatin kuwa rumaysan ilaahooda iyo kitaabkooda iyo rasuulkooda aakhiradooda kuwa rumaysan inay yihiin oo musadiqaad haddaad ogaataan falaa tarjicuu ha ku celinina muslimiinay hunna gabdhahaas mu'minaadka muhaajiraadka ila alkufaari kufaartii ay ka soo carareen oo ka joogtay oo mushrikiinta ahaa ha ku celinina ilaa aswaajihina almushrikiin weeye raggii qabay oo mushrikiinta ahaa waa nijaase ha ku celinina maxaa jira ilahi wuxuu yihi inama almushrikuuna najasun soo maha waaba nijaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka gabdho daahiraad ah siaad ugu celinaysaa marka taas ogaad ha ku celinina maxaa wacay laahunna gabdhahaas mu'minaadkaah oo muhaajiraadkaah ma aha xillun xalaal lahum lilkufaar almushrikiin kufaarta mushrikiinta xalaalba uma aha ilaa waana daahiraad wey gabdhuhu walaa hum mana aha kufaarta mushrikiinta ah yaxilluuna kuwa u xalaal ah lahuna lilmu'minaati almuhaajiraat gabdhaha mu'minaadka kasoo cararo kasoo haajiray xalaal uma aha ilahi subxaanahu wa tacala waa nijaastaas xukunka sida ilaahay u dhiibaya fiiri xukunka sida ilaahay kuu akrinayo bal fiiri go-aanku ilaahay gaaray allahu cadalulcaadiliin subxaanahu wa tacaala amaa kuwaas ile mataqaana annagaa qabnay waa haweenkeennii noo soo celiya ku dacwoonayo in kugu imaanaya wa aatuu siya kuwaas wa acduu wasiya hum kuwa ayaga ah oo raggii marka hore ku qabay shirkiga ah diinta shirkiga ku qabay ah maa maal siiya anfaquu mushrikiinta qabay gabdhahaas ay ku bixiyeen gabdhahan oo minal muhuuri meheryaalka ay siiyeen iyo wixii awal ay siiyeen ugu dareena adinku hadda siiya masalaas waa la fahmay ilata manka mushrikiinta ka daba yimid haweenkan oo yidhi waa haweenkeenni annagaa qabna xaasaskeenni wey mataqaanaa noo celi maxamedow kule u celi maysaana anaga xukunkaas gaaray oo gabdho daahiraad ah yacni mutanajisiin oo nijaasa loo celin maayee wixii markii horeeto oo ay guursanayeen maalahayo mataqaana ay ku guursadeen oo meheryaalkoodii ah iyo waxay ay ugu daran hadday sheegtaan adinku siiya maxaa siideen gabdhaha markaad guursanayseen ood mushrikiin iyo mushrikaad isla ahaydeen intaas soo maahan hooda ka baxa magaalada madiina ama diinta adinku soo raaca adinka jawaabkaas kuwa horta saa ku ihahdo ilaahay caza wajalla subxaanahu wa tacaala walaa junaaxa walaa isma dambowna calaykum dushiina kagama sugna muuminiinay an tankixuu inaad guursataan hunna haweenkaas mu'minaadka oo muhaajiraadka inaad adigu guursataan wax dambowho in kaga jira ama ceeb ah ama nusqaan ah ma jirto ilaahay haweenkii yani mataqaana raggoodii qabay bay ka guursadeen dacayaad waa la furaya soo ma waxaas adinku shuqul kuma lihid waxa ay markaa ku sheegteen oo yidhaahdaan markaan hore ku guursanay meheryaalkooda wax soomaanaan celin walaa junaaxa walaa isma dambow calaykum dushiina kagama sugna an tankixuu inaad guursataan muuminiinay hunna muuminaadkaas muhaajiraadka oo hadda maka idin yimid oo naartii iyo kufrigii iyo faalxumadii ka soo yacni badbaaday oo ilaahay ka soo badbaasho nebi maxamed nuurkiisa ilaah u keenay adinku inaad guursataan adinkoo muuminiin ah wax dambowa
kagama sugna dushiina haba yaraata ilaah yidhi goorma idaa markii aataytumu aada siisaan hunna gabdhaha muuminaadka ujuurahunna muhuurahunna weeye meheryaalkooda aada siisaan aada siidaan marka ma ujeeda waa laba gacmood soo maha kuwii horey ka soo carareen oo mushrikiinta ahaana waxay ku sheegtaan iyo meheryaal iyo maalana siiya kuwaas adinkuna dembi kama qabtaane guursada laakiin goorma aada guursanaysaan markaad hadda meher cusub ula tagtaan gabdhaha sida gabdhaha kaloo muslimaadka inila jooga aada u mehersanaysaan u guursada sayaad meher u siinaysaan aqal ugu dhisaysaan yacni mataqaana xaasaskiini aada uga dhagaysaan bay ka mid yihiin liannahu waa muuminaad muuminaad wey kuwaan bay la mid yihiin aada qabtaan saasuu ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala taa ogaan waxaa kuu soo haray marka walaa tumsikuu bicisamilka waafir waxaa jirta marka nimankan mu'miniinta nebi maxamed soo haajiray oo muhaajiriinta ilaahay ammaanay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu yihi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin ilaahay uu yihi raggaa ayaga ah waxay uga soo kaceen maka xaasaskoodii oo mushrikaad ah abubakar baa ka mid ahaa radiican wa ardaah way kaga soo baxeen oo iimaankii aan ku soo raacin raggaan soo haajiro muuminiinta maka yimid oo ilaahay rasuulkiisa soo raacay ka reebtayoo dhaqankii shirkiga iyo asnaamtii iyo qabaa'ilkoodii ku haray oo maka dhex fadhiya oo naga mushrikaada ah iyo kuwo mataqaana maaragtay markii hore inta mataqaana yani muslim noqday kabacdi ridoobay oo maka ku noqday oo jooga waa labadaa qaybood labadii buu ilaahay isku daray marka allahu acdalulcaadiliin ma ujeeda marka sida nimanka mushrikiinta haweenkii ka soo baxsado inii yimid aysan xalaal ugu ahayn un xugmiyuu ilaahay yidhi yaa adinkoo muuminiina oo ilaahay rumaysan oo nabiga rumaysan oo qur-aanka rumaysan oo muuminiin ah oo daahiriin ah aysan naagaha xuxunka ah oo mushrikaadka ahood hore u qabteen iyo kuwa dembi ka ridoobay ayaguna waa khabiisaad weeye khabiisaad weeye marka adinkoo nadiifa iyo iyagoo mutanajisaad ah ehelba isuma ihidin ehelba isuma ihidin uu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala marka saasay ayaddu ay hadda halkaan yaan ka anba qaadayna walaa tumsikuu ha hayninu ilaah yidhi muuminiinta bicisamilka waafiri naagay kaafiraadka ha xarigooda ha haynina cisimka aad maqlaysaa waa caqdiga nikaaxi marka hore aad ku xirteen oo maka la joogay ilaa markaana ilaahay xukunka dhigibaya ka hor waa la isguursanayay waa naagaha mushrikaadka ah iyo nimanka muslimiinta ah oo maka joogay inay isguursana xalaal bay u ahayd xalaal bay isu ahayeen ilaa dhaqankii horea jiray dhaqankii hore ayaa jiray waxaa jiray zaynab waa bintu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam waa zaynab lixda caruuraha o dhalay gabadhii labaad weeye qaasim keliyaha ka horreeyey walma khadiijo lixday dhashay ka mid ahay iyadoo maka la joogo yuu nebi maxamed aburabiic u mehriyey rasuulka maxamed u mehriyey oo mushrik ah waa intaan lasoo haajirin ogaan oo saasay markii hore yay xalaal isugu ahaayeen mushrikiin iyo muuminiin iyo yaa la iskugu ahaa ilaa ayaddaan ilaah kala saaray subxaanahu wa tacaala oo uwadda muslimiintu maalinba meel bay joogtaa ma ujeedaa feri marka ilahi wuxuu leeyahay walaa tumsikuu ha haysanina muuminiinay bicisami lkawaafir kawaafir jamcu kaafira wey bicaqdi lmushrikaat haweenkaas yani asnaamta caabudaya nikaaxooda ama xarigooda aad ku xirteen ha haysanina tuura xalaal inay ma aha markaan ka bacdi subxaanahu wa tacaala waxaa suurat lbaqara ad ku soo martay walaa tankixu lmushrikaati xataa yuumina walaa amatun muuminatu khayru min mushrikatin walow acjabatkum waa taa soo martay
walaa tunkixu lmushrikiina xataa yuuminuu walaa cabdun muuminu khayru min mushrikin walow acjabakum maxaa ilaahay ku diidayaa ulaa'ika yadcuuna ila annaar buu ilaahay wallaahu yadcuu ila aljannati walmaqfirati biidnih buu ilahay arrintu way kala fog tahay wax la isku qasi kara maaha taas ogaa haddaan waan arkaynaa iska dhaaf musi kaleete gabdhihii soomaaliyeed yaa kuwa makaafiriinha iska haystaan hadda asaa lagu leeyahay hebel baa qabo heblaaya qabo xaggee la isku qaba kulli waa zunaad iyo zawaani wey shareecadda islaamka calayhi salaatu wasalaam taas ogaa saasuu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala marka u jara xariga tuura xalaal ilin maha kuwaas was'aluu weydiisa marka raggii ayaga ahaa oo adinku aada haweenkan yani mataqaana mushrikiinta ahaa oo maka joogay markaad haweenkoodii mataqaana mushrikaadka ahaa oo la joogay aada xarigga u jarteen markii hore ood maka wada joogteen wixii aad ku mehersateen oo maal ahaa iyo waxaad ugu darteen weydiista ma ujeeda isku bedel inay tahay nasiya ilaahda adinkuna maxaa jira adinkuba kuwii idin ka soo baxo muslimaadka ahaa wixii aad ku sheegateen waa in siin annagana wixii aan mushrikaadka markii hore aan ka bixinay noo celiya annagana saasad dhahaysa soo arki maysid wasaluu weydiista adinkuna nimanka ka mushrikiinta oo naagaha mushrikaadka ah oo mataqana idinka aad qabteen xariga u jarteen ay mushrikiin isla yihiin maa anfaqtum wixii aad ku bixiseen markii hore oo meher iyo waxay la socday ahaa adinkuna nasiya iraahad weli yas'aluu waa lasoo koobo marka tan waxay la soo celshay waa tawkiid weli waa tii hore oo kaleeto soo marnay weli yas'aluu ayaguna ha weydiiseen hayna weydiisteen maa anfaqu waxay ku bixiyeen yani mataqaana haweenkii ka soo yani mataqaana haajire oo muuminaadka ah waxay ku bixiyeen hay weydiisteen saasaad ku kala baxaysaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kala baxaysaan dalikum midka ilaah subxaanahu wa tacaala oo kala soocidda aan kala sooco ilaahay yidhi muuminiinta iyo muuminaadka wada jira oo daahiriin iyo daahiraad ah iyo mushrikiinta iyo mushrikaadka wada jira oo khabiisiin iyo khabiisaad ah ma ujeeda xukunka aan kala saarin oo inaysan dib dambe xalaal isugu noqon ay isguursadaana xukmullaahi ilaahay go-aankiisa wey isagaa gaara xukunkaas ilaahay qaanuun bani aadan xeer uu dhigtay ma aha arrintan saasuu ilahay subxaanahu wa tacaala ilaahay xukunkiisi wey isagaas sheegay yaxkumu ilaahay waana xugminayaa baynakum adinka gudihiinna waa bayna almu'miniina waalkaafiriin bilxaqi bixukmi alcaadil wey xugun yani loo sinan yahay ayuu ilaahay dhexdiina uu soo dhigay oo inku kala idinku xugminaya saasaad ku kala bogsanaysaan wallaahu ilaahayna caliimun kii xogaal badan wey wax walbaba uu kala saarayo isagu cilmi dheer buu uleeyahay waxay la mid tahay ayadan ku dalaysaa wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun saddex meelood soo qur-aan kuma adka awalka iyo aakhirka wallaahu yaclamu wax walbuu ilaahay ogyahay wa antum laa taclamuun adinkaa xeerarka samaysanayahana waxaad ogtihiin malahu ilaahay xeerarka aad ageynaysaan oo dhan waa shay baadiluhu ilahay subxaanahu wa tacaala mar hadday khilaafaan cilmigayga hadday khilaafaan cilmigayga wixii aan ku xugmiyey waxa lagu wixii khilaafsani baadil buu noqonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala walidalika qaala nabiyu sala allahu calayh wasalama kulu shardin laysa fi kitaabi illahi tacaala fahuwa baadilun buu rasuulka maxamed sala allahu alayh wasalam yani shardi kastoo la dhigto xarig kastoo xeerhoo la xiro oo khilaafsan kitaabka qur-aanka xukunkiisa waa baadil buu nabi maxamed yihi sala allahu alayh wasalam soo arki maysa meeshay maanta mataqaana booraanta muslimiintu fiiri ay ku dawada dhaceen so maanta arki mayna kulligay wixii nabi maxamed naga reebay bilaaya wal xadiis nooga reebay yaan inta xagga u tuurnay yaan anagu mataqaana waa kuwaas godkaasaan ku wada dhacay saasuu ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala wallaahu ilaahayna caliimun kii ogaal badan weeye wixii uu xugmiyey inay xaq yihiin wixii weydaarsanona inay baadil yihiin asagaa cilmi dheeraada u leh subxaana wa tacaala xakiimun oo ilyaqaanho sidaa u xugmiyey oo abbaaray aan ku gafin xerarka waa lagu gafaa taas ogaa
إلهي وحر وإن فاتك ومدة هذا عرف عن قصور الفنية ونمك هذا هو مرتداد هو ناجح وتوحيدي كان نقطي وقوة حتى قصور درنا مركي هوري لكن أيضا أنا كوفة فهنا وإسلام ماشي وقال وإن فاتكم أدينك هذو إن كتبوا إلهي شيء سير لود اللي يفير ناكتي توحيدك كان نقطي وشركي آدي شيء بالغير وشيء وحقيرة ومتنجسة أيضا ظاهرة هي متقى النجاس سودة سؤال كميس إلى يحر وإن فاتكم أديك هذو إن كتبوا شيء معنا زوجة مش الوجه شيء هذو إن كتبوا شيء من أزواجكم حاسسك قاعد عندكم قبطان ومؤمنين يا مؤمنات كسوتين رجينا مؤمنين كنتم رجي كل عيسى رجينا مؤمنات كحاسسك قاعد قبطان شيء كمده هذو إن كتبوا وحقوا آدم إلى الكفار إلى المشركين مشركين تنا وتقوا آدم وناقل الدودة أما واحد كبضا أو فعاقبتم هذا عقابتان إلهية فعاقبتنا قراء قبتي فعاقبتنا قراء كلوي فعاقبنا عقوي أفرق لك سؤال رسم مشعر بمعنى واحد نوي هل معنى سوء معنى لكن قراءة تضبط واحد أفرق كم بدها أساس ولا بحيث وراضوا أخرية وفعاقبتم مركز هذا عقابتان تاس تفسير كاسان لما تفسير كل جيران كقوادين وقت وأنا جابين هذا عقابتان محيطة وإنتاج المشركين تؤدوا شان حوار بدن وقنيمة كسوق قادتان لمن كاس نجي أي قبيل يكرر الدوبين ومشركين أتجاه حوارها منطقة أن مشركين كسوق قنيمة كسوق قادتان قبل القسم intaan la qaybinin nimanka naagahoodii ay ka tageen ay murtadeen ka noqdeen wixii markii muslim islaah ay ku bixiyeen meherha iyo wixii raaca uga gooyo siyo ilaahay leeyahay siyo xunku meesha uu ka yafeer macnaha taas weey fa aaqabtum fa asabtum loo jeeda ama fa aqadtum wixii aad ka soo qaadataan marka isku duushaan mushrikiinta oo maal ah qaniima la yiraahdaa markii madiina la keenay intaan la qaybino ragii yani xoolahaas yani ka soo mushrikiin ka soo qaatay intaan la qaybinin waa qabla qisma nimankii naagahoodu ay ka ridoobeen wixii markii hore ay mataqaana ku bixiyeen uga gooyo siyo ilaahay leeyahay wa inaas ka siidaan ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala وفعاقبتم معناها سأل عقابتان فآتوا سي الذين مؤمنينتي ذهبت أي كتكتي أزواجهم موجودة حاسسكم أي كتجينوا كردوبين سي مثل ما لمده أنفقوا أي ديبين كل خراتوا أي ديبين سأل كميس لم إن لعك فرتك صار المكاس واتقوا الله إلهينا كبغى رقيه مؤمنين ته إلهي كبغى وحكم كاس أنو أن سود الشيء وكتاب كيجا وصورة الممتحنة كاملة آخر كذا والنبي محمد إنك رقاحي ولقد إنك سود دقي حرر كني تفرح كقعدان سداس كل رقم إلهي سداس كل رقم إحسان إلهي سبحانه وتعالى تقول عاد مغلسة مالك استيجلسة تقول عاد جلسة ملو جلسة الذي إلهي كبغى أنتم أدنكم مؤمنين أثرم سنتين بها السجوة أثرم سنتين وحالوها سنكون واجبية إن تكسعتان كسعة وحيالو إن كحرمين إسكداي علماء قبل كذا أفكار لقرنا ورن وقيل على المغلي حون كان والله نسقي ليه حون كان والله نسقي هذا دليل أيها السلام آيات كدم بيس سورة كدم بيس سورة دار وسود قتي وحون لو كقادنا مجرو حو حديث كدم بي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح أنا الله ما هيو مركب وحوي وأفكار أفكار علماء ساستري للراعي ما يمركب حون قصاص وصعنية حون قصيد هذا يو إلهي وقع حية لكن إيه الملمات هاي دد مسلمين هو دولته مدحه ودن كذا حكومة مشى كتاب القرآن كحون كيسة دون ذي بمتشوق المات الله كان سبحانه وتعالى
yaa ayuha nabiyu idaa jaaaka almu'minaat aayaddaanuna fatxu maka markay dhacday sanadkii 8aad waataan awalkuba mataqaanaa mumtaxina maxaa loo yihi shalay waataan soo marnay xoogaa macaanidii ka mida waa saan soo baartaa taas ogaad oo raggii mataqaanaa mushrikiinta ahay oo boqorka u horreeyey meliku maka abu sufyaan iyo uu nabi maxamed mataqaanaa ku mashquul ahaa 7 maalmood waa sitimaana ugu yaraan oo 3,000 iyo zaa'id ahaa ragga waaweyn oo uu ka dhaadhiciyey mataqaanaa xaqa tawxiid shirkiga xumaantiisa 5 salaadood sidii waajibaadka ahaa iyo muxaramaadka ahaa uu ka daadejiyey ila waa luqadoodii iyaguna ay qaateen iyo nabi maxamed mubaayaca la galay marka ilaa 7daas maalmood ragga mubaayaca la sameeyey rasuulku haweenkii baa haray marka buurta la yiraahdo safa oo quraanka ilaahay ku sheegay inna safa wal marwata min sha'aa'ir illah sawmaha oo laga bilaabayo sacyiga laga bilaabo iyada laga bilaabo oo nabigu yiri yani bada'u ma bada allah wixii ilaahay bilaabay ka bilaaba socodka ila iyada laga bilaabay inna safa iyada ilaahay ka bilaabay dhawaaqay buurtaas meesha korkeeda yuu bacd alcasr rasuulku fadhiista calayhi salaatu wasalaam marka hadda waa la dhisay dhulkii dhammaa waa u jeedaa ee marka safiya marwa iyo masjidul xaraam oo kacbadu ku dhex taalo way kala go'naayeen wayna kala fogayeen cabaar marka labada buurood yaa isu muuqda dhulku waa bannaan kale dhexda meel tog ah waay halkaas u fadhiista rasuulku haweenkiina reer maka ahaana waa ku soo urureen nabiga calayhi salaatu wasalaam ku soo urureen way yimaadeen boqorkii maka oo muslimayna nabiga garabkiisu fadhiya abu sufyaan ku fadhiya ragii odayaasha waa wada fadhiya uqaashi waa la fadhiya cumar bin khadaaba marka meesha nabiga hoostiisa ilaa nabi maxamed buurta dusheedu fadhiistay ragii cumar baa fadhiya marka cumar muxuu fadhiyaa waa muballaq nabigu ka gaarsiinaya dhawaaq calayhi salaatu wasalaam kayis buu ahaa dhawaaq dheer wadadaas shisho oo ka hor hadalkiisa oo la yaqaano toos looga maqlayo radiyallahu anhu wa ardaa ku gaar wixii nabi maxamed yiraahdo ku gaarsiinay ayadu horta waxay ka hadlaysaa waa dumarkaas mu'minaadka oo mubaayacaadka oo reer maka ka hadlaysaa إلهي وحوري يا أيها النبي نبي كان أن دورتيو إله باين إذا مركي جاءك أديك يكون مادان المؤمنات هوانك مؤمناتك يبايعنك حال أديك أي كل مبايعون أيان ويكون رب الله ميان الله يشركنا إن يسل الشريك بالله إله شيئا وحبا وفي المشي إذا مركي جاءك المؤمنات مؤمناتك ay ku yimaadaan yubaayicnaka iyagoo isla markaas kugu ballamaya wala maayoonaya hala alla yushrikna inaysan la wadaajin billahi biibadati illah ilaahi cibaadadiisa u gaarka shay wax ka soo horo makhluuqa inaysan ula qaybinayn oo wala yasriqna aysan xadinin waxba aysan xadinin halka markii nabigu joogo haweenka waxaa ku jirta sawjatu malik boqorka xaaskiisii ku jirta hind bint utba ku jirta dhax fadhida marka nabigu uu yiri ilaahay ila aydiisu aqrinaya wala yasriqna wa inaysan waxadin ay ku wala mubaayacoonayaan waxay tiri إن أبا سفيان شحيح وإني أصبت من ماله ما يكفينا أبو سفيان ماشو فدي أنا بقرب كيس هو بقرك وحيث يرنين بخيلة ويا
oo xagga masruufka iyo marashada iyo waxaan ugu filan aniga iyo caruurtayda nama siiyo markaas si uusan ogeyn ayaan uga qaatanaa tiri maalkiisa aan wax uga qaataa si mataqaanaa aan ugu kabo wuxuuna siiyo aniga iyo caruurta naguma filneen ayay tiri faqaala abu sufyaan huwa laki buu yidhi wixii aada qaadatay adaa iskale waana ku cafi nin soomaaliya meel shirhoo la fadhiyo oo weliba nin soomaaliya oo madaxa wey oo madaxa ahaa jiri meel shirhoo la fadhiyo haddii xaaskiisu ku yidhahda sooma fureen dabeec xumadeen inta caroodo oo furi laha sooma isaguna muxuu yidhi huwa laki adaa iska leh waana cafi ayuu nabigu xoogaa waa dhow la caddeeyey sala allahu calayhi wasalam wuxuuna yidhi khudii maa yakfiik waladik adiga iyo wixii caruurtaada idinka in ku filan ka qaatuu rasuulku yidhi calayhi isalaatu wasalaam la qaadan maayo laakiin marka nabigu waa gartay markii ay hadalka tiri carafaha inay tahay hindo bintu cutba nabigu waa gartay calayhi isalaatu wasalaam faqaala anti hindu rasuulku yidhi hinda miyaad ahay nacan bay tiri cafa allahu camaa salafay tiri markii horeetana mutaqanica mutanakira waa isgamboosho waa isqarisay khawfan min الnabiyi salى اllahu alayh wasalam baqida nebi maxamed ka baqayso biqatli xamza xamza shahiid اlislaam dilkii ay dishay ilaa yadaa sabab u ahayd sabab u ahayd sabab u ahayd markaas nebi maxamedna mataqaanaa ilaa cid wax u sheegan maayee oo ay tiri mataqaana hindo waanahay oo nacam ay tiri oo ay tiri cafa allahu camaa salaf ay tiri waxay sii dhigtay rabbaynaahum sigaaran waqataltum kibaaran bay tiri wiilasha markii aan dhalno ilaa ay ka noqdaan barbaar annagaa korina soo barbaarinay tiri marka nebi maxamed oo adduunkuna markay weynaadaan ayaa dishaan bay tiri taasna waa raacsayda maxay uga jeedaa sababka yacni mataqaanaa sanadka saddexaad hijrada nabiga beder badayaan dhehine uxud xamse iyo raggiisa ay ku shahiidi doonaan maxaa ka horreeyay sanadkii labaad oo ahaa mataqaanaa beder ugu horreeyey meesha waxaa lagu dilay cutba bin rabiica oo aabbaheed ahaa shayba bin rabiica oo adeerkeed ah xandala bin abi sufyaan oo wiilkeedin abu sufyaan ah alwaliid mataqaana ma aragtay bin cutba oo walaalkeed rum aha afartaasaa meesha ku dhintay oo gaalaha maalinkaas markii maka lagu soo noqday intii soo noqotay oo iyagoo soo cararay boqorkii haddii uu lagu dilay bederna abujahalna lagu caleemo saaray abu sufyaan ninkeedii sakar binu xarb lagu caleemo saaray dagaalna uu abaabulay inuu maka ku duulayo addoon ay laheed oo la odhan jiray mataqaanaa waxsh oo nin afrikaan ah waxay tababartay tiri tababaro si fiican tababar u qaado ninkii aabbahay dilay bay tiri oo xamsaha oo maxamed adeerkiisaha haddii dagaal dhaco inaad dilayso yaa xornimadaada ku xihan tahay hadda addoon baa tahay xor baad noqonaysa hadda addoonnimaduna wax culus wey ilahay naga magangalo wey dantaa keenta mooyaane hal sano tababaranay hal sano tababaranay waa kuwa hada duulahan ka soo qaaday maka qabaa'ilkii ay hogaaminaysa qoraysh oo hawaasin iyo khifaar ay ka mid ahaayeen 10,000 iyo zaa'id isu soo gadaamay madiina iyaduna waa soo raacday
dagaalkii raggay guubaabinaysaa haweenka Quraysh iyo ragga Quraysh dhammaantood qof aan gabyiri ma jirin walow had bayd ba Allah ka dhigay kulli waxay ahaayeen shaacirin shaacira halka marka Hamza wax shay waxay ku tiri in qatalta Hamza ama nabi fa anta hurun bayt hada soo meesha ugu dambeysay ma joogno colku soo bareed madax isgelin ma yahay disho xorbaata alxaasil ninkaano hada ma taqaana min awaaraha markab ah oo wixii ka hor yimaada seeftiisa marsiinaya mushrikiinta Hamza oo laga kala cararay iyo geed yar oo nagaarhu isugu aasay marka waa dabacday wahshi markuu la sanan yahay iyo ku sii daayay marka xidmaha jirtay ala ay xal ka bacdana waa dhacay saas ku shahiiday marka saarkiisa arrintaas ay horta maaragtay iyadu maaragtay ka dabaaqaysi oo arrintaas jirtay markii nabigu uu yiri mahinda tahay awalna waa tii isqarinaysay baqida nabiga ka baqayso oo arma lagu qasqaasa waxaas isla ay maxamed baabkiisa ma ahan arrintaasna way tiri oo waxbay gocatay marka wuxuu ku yimi markay ku yimaadaan dadka muuminiinta ay wasal markaas kula ballamaya inaysan ilaahay ay
aysan cibaadadiisa cibaado makhluuqa la wanaajin oo walaa yasriqna aysan xadin ay mataqaanaa kugu yimaada kugula mubaayacoodaan xada kugula mubaayacoonayaan inaysan waxba xadin halkaas waxaad ka ogaanaysaa marka sariqadii oo maaragtay gacanta la isu goynayo suuratulmaa-ida aan kusoo dhaafnay ma aha oo wasaariqu wasaariqatu faqducu aydihima ma aha waa yacni tuuganimadaas haweeneyda lagu aaminay aqalka waxa yaalla xaaska la qabo ay mataqaanaa ay xadaysa wey marka sidaas yacni hindo oo kaleeto uga eed sheegata abu sufyaan oo kaleeto wixii ah oo ninkan odaga ah mataqaana quud ciriir inuu ku ridayo haweeneyda iyo caruurta iyo taasi xaq bay u leedahay inay hoos wax uga qaadato ilaa maamulka iyada haysa bal la aaminay laakiin waxa aan sidaas ahayn shareecadda xaaraan bay uga tahay wixii mataqaanaa inay wixii waa dhammaadeen waxba lagama hayo ama danteeda mataqaana iyadu mataqaana ugu takrifasho ama dadkeeda ay siisato ama saaxiiba ay siido oo yani mataqaana ku fataasho hada huwa alxaraam shareecaddu ma ogola waa inay ninkeeda kala tashataa maalka ninka hadday gacanta ku haydo oo guriga joogto waxay baa gaar u leedahay waa iyadu say rabtay u bixi kartaa laakiin mayo maalkani waa ammaana waa ka xaaraan taasila oga subxaanahu wa tacaala taas waa taas oo walaa mataqaana yazniina inaysan sinaysana ay kugula mubaayacoodaan faqaalad hindu aw tasni xuray tiri waa hindadii islaantii naag xora miyaa sinaysatay tiri waana mushrikadii ugu markaas ka hor naag xor ah say u sinaysan kartaa bay tiri wax lala yaabo wey wala marka ka hor oo walaa yaqtulna inaysan dilin ay kugula mubaayacoodaan awlaadahuna caruurtooda inay dilin waa dulbanaadkii weeye oo ayagu mataqaa ay samaynayaan dhankooda oo yani ninkayba mataqaanaa naagtay nacabtahaba ninkayba waa nabcaatay marka calooshii mataqaanaa carruur ku jiray ayayba mataqaana iska soo tuurtayba ama dilanba mataqaana waktigaas ahay samayd ama banaanka markuu yimid awal waa sanaysatay saan lagu caabayn isagoo nooloo galgalanayayba dishayba walfeeri waa wax hadda maanta caalamka ku batay wey naagihii muslimka sheeganaya mataqaanaa dariiqyaalka mataqaana subaxi laga qaadaya carruurtoodii kuwana ay dhinteen oo xala uga tageen kuwana iyagoo galgalanaya muslim kale ka qaadayo oo waxaa soo batay zinadaa soo badatay oo walaa yaatiina inaysan la imaanin isla markaasay kugula mubaayacoonayaan bibuhtaanin masabid buhtaankoo yaftarina ay ka abuuranayaan haweenku buhtaankaas bayna aydiihinna wa arjulihinna gacnahooda iyo lugahooda hortooda ay ka abuuranayaan balfeeri maxaa yeele haweentu mataqaana markay maaragtay 8 bilood ay dhaafto 9 bilood mataqaana waa ujeedaa calooshii dhameed mataqaana waxay ka soo horeysaa gacnihii iyo lugihiiba soo arki maysa saas ugu fasir tafsiirkaasaa hadda daahirkaha kuu muuqanaya midkana waa jira oo maxaa looga jeedaa meeshaan naagtaani mataqana nin bay isu dhigtay iyadoo xataa caruur leh waladkana waa xaaraan ninku ma oga bis markaasay leedahay mataqaanaa waxay caruurkaan wiilkaagaan ma gabadhaadaan caruurtaadu ka mid yahay leedahay ninkuna war kama hayo nin kalaan iyada ka dhala iyadu waa ogta marka waxay ugu daraysaa ninka caruurtiisii ugu daraysaa yani waa bahutaan masabid ah waa been weynaatay subxaan allahi oo walaa yacsiinaka adiga aysan kugu caasin haweenkaas ay kugula mubaayacoodaan fii macruufin shay wanaagiisa la yaqaano fii daacati illahi wa daacati rasuulihi weeye meesha ilaahay iyo rasuulkiisa ay adeecaan oo wixii ilaahay yihi ku adeec igu adeecaan iyo nebigayga aysan mataqaanaa gaar marin dumarkaas sidaasu hadday kugu yimaadaan ayagoo kugula mubaayacoonaya intaas fabaayic baa la nebi maxamed oo la mubaayacoodhunna ayaga oo
ballankaas ka qaad ballankaas ka qaad laakiin intaas oo nawaahiye oo xaaraam ah oo haweenka ka dhacda wayna iska daayaan ilaahay waysan u dhawaanin hadday ilaahay dambi dhaaf ka rabaan waysan u dhawaanin واستغفر ذنب دافنا ويدي نبي الله الله إلهي لهن المؤمنات وكان مؤمنات يكون ومواجعاتك إلهي إنه قدام بدافنا ويدي مستجاب دعوة هاي إله قدام بدافنا وندم بدافيا هذا وحان كالنقضان ويظاهر كالنقضان إن الله إلهي غفور كي قدام بدافد بدن ويا لهن كواس يا ولا غيرهن غير كذا مسلم كلا تهدي سايلا رحيم بهن يقولون حريصنا يه ونحريصي سسينا يه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إلى رسولك يسكور رميانو لا تتولوا هالحل لسننا قوما رجع هالحل لسننا أي رجالا ما كفسر رجع سوق قدب الله له وعرض عليهم دشوده هو بيهود ديبه صدح تفسيره كجته ويهود يا مشركين تا يا منافقين تا صدح هذا الجمع ذنا تفسير عام باب القادة لكن هدي قدب الله لسوق هذا قرآن كمال كستا وفاتحة أهرسه وأم القرآن يهودا لو يقانا كل لحرير سنية هو لحرير سنية مركا هدي اللي يرى هذا مركا وقوة علم على اليهود ويه كوا يعني متى لحرير سنة يجيه ومنافقين تي مركز منافقين تي وحرق هو سأي وضع هيستان ظلم قال وظلمي توحيدك لظلمنا كواس هل حرير سنين كواس قد حقيقة يسوع كقوستي من الآخرة من ثواب الآخرة آخرة ثوابك إلى سيلها وأنت إلى قدام بدافع جنة جنيه ثوابك كاس كقوستي وغير آخرة بقى أنا هينو إلهي بمتقان عابدي سبحانه وتعالى كما سيد وقوستي آخرة ثواب كذي يا إسال كفار مشركين وقوستين ومشركين يعني وعربتها من أصحاب القبور من أهل القبور قبريالك كوي قليين أي كقوستانو إن يسال أسو النقنين وضدك حبارا دبدا بيت أسو النولاني أو بعث أسجرين أي يقول أمسيا المشركين أيضا مثلا كنا ترى عظاما إن المبعوثون ديوي مركز صدح معناه كوجري معناها يعني كسوق هذا سورة الصف المركز مدنية سورة مدني بسم الله الرحمن الرحيم صبح وحكو تصبح لله إلهي وحكو تصبح صدي ووحوصا إلهي أقل من يعني متقانا كفوقية ما في السماوات تضبط علم وحكو سوانا ملائكة يوحي كل مخلوق إليه كأبوي وما شيء إلهي كو تصبح صدا في الأرض بقى قويسة كسك و لي مياه وحنا في كجتها مبوراه يعني مجيدها أنا وحول بابا إلهي أدعسيه دو سبحانه وتعالى إلهي أدعسيه إلهي كو تصبح إلهي عابده وهو إلهاس سماوات كأبار أنا أبوري وحقوده هذا كجرنا أبوري مخلوق كجرنا إلهي عابدان شادون الجن والإنس ما هني العزيز الغالب ومثل كو هذا وكل رأي أمر كيسة ووحي يعني مثلا أنا كأمر قاطن أسقو أمر كيسة جديدة هديرات عذاب إياه أن مرنا موجين وما الله بغافل عما يعملوا وما الله بغافل عما تعملوا لو غرويه وحل السماين أيه إلهي من موجع لأنه بصير ويأت بو أركيا حاضر وأويها إلهي سبحانه وتعالى الحكيم ليقال إلهي سبحانه وتعالى سيدا يعني وقفل علينا أيه مركو إلهي أرسنا أيه ما شاء الله وأرني يعني أقارأ أسيه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذا أيضا وعام لو سود للشده لكن سبب نسول بيلهاد وحاجري رج مركو هore la celi waayay ويعني مثلا الجهاد كان قال انه كل ما ان حق iyo xagga la celi waayay ee markay arkeen mataqaana dhiiga daadanaya gadaal u suqo u carray yaa la arkay
markaasaa la arkay tii buu ilaahay marka ka jawaabaya yaa ayuha aladiina aamanuu ilaa rasuulkiisa kuwii rumeeyeeno lima taquuluunu ilaah yiri maxaad yacan ugu hadlaysaan maa wixii laa tafcaluuna aadnaan samaynayn waxa aadna adinku ku camal falayn maxaad ugu hadasheen wey hawaadinkii nebi maxamed yani nebi maxamedow maa la baxo maxaa loo fadhiyaa bababababa layna celin waaye haddana waad u jeedaanoo gadaal baad u gurateenoo waad cararteene see ina ka noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala lima taquuluuna maxaad ugu hadashaan maa wixii laa tafcaluuna aadnan ku camal falayn oo aadnan samaynayn oo inaad hore u gashaan ahayd oo laydinka maqlay oo laydinka joogi waayey laydinkama haya waa sidee kabura waxaa weynaado ilaahay maqtan xagga carada haddii la yidhaha qallaban iyo maqtan lafdiga waa kala bedelan yihiin macnaha laakiin waa iswaafaqayaan laakiin maqtiga ayaa sii weynin badan carada ilaahay carada kale waa ka weyntaa carada alle carada makhluuqa waa ka weyni badan tahay nimanka meesha la gaarsiiya feeri kabura waxaa weynaaday maqtan xagga carada cinda allaahi agtiisa laydinkaga caraysan yahay an taquuluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaadnaan falayn waxaadnan ka qayb gelayn oodnan ku shaqaynaynin oodnan kartideeda iyo mataqaana geesinimadeeda aadnaan lahayn inaad ku hadashaan maasha allah caro allaad ku dhaxasheen wey ama maqtigoo cinda allaahi ti adag kuu fudaxa subxaanahu wa tacaala ilahay marka waa asagaa yani tababarka dhiibaya ilaahay tababarka asagaa dhiibaya in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay ilaahay baa leh aladiina kuwa yuqaatiluuna ku dagaalamaya fii sabiilihi asaga jidkiisa gudihiisa waddada uu amray wajaahiduu fi llaahi amarka uu amray ku dagaalamaya oo nebi maxamed safka u banaynayno cararaynin ilaahay waa jecel yahay subxaanahu wa tacaala halkaas maxaad ka fahamtay kuwa sidii noo kaleeta cararayna ilaahay waa necabyo waana u carooday wey subxaanahu wa tacaala leanna markaas jihaadku waajib buu ahaa fardi buu ahaa markaas waajib buu ahaa ilahi saas uli subxaanahu wa tacaala in allaha ilahi yuxibu wuxuu jecel yahay arrin sahlan ma ahan aladiina muuminiinta yuqaatiluuna ku dagaalamaya fii sabiilihi licilaa'i kalimati illaah ilahay kelimadiisa tawxiidka kor u qaadideeda daraaddeed u dagaalamayo oo adduunye iyo magac iyo midna aan cid bani aadan makhluuqba ka sugin safan xaal ay yihiin yani kuwii yani mataqaanaa saf ah manaa mataqaana hadda waa masder suufina oo la sinay ilaa nebi maxamed baa sini jiray sida salaada loo safto u sinoo kale waajibka jamaacada yuu safka dagaalkana u sini jiray rasuulku saxaabada sala اllah alay slam kaannahum waaba iyagoo raggaas bunyaanun dhisuu ilaa yidhi dhis midkaan oo kale sida laysu saaray fiiri meeshii banaaneed maaragta inta la qoday la gelshay sida loo soo dhisay sida dhagaxo isu haysa soo arki maysa taasaa lagu shabahaya kaannahum waaba iyagoo bunyaanun dhisa marsuusun oo laysgeliyu ilaah yidhi laysdhexgeliyey aad laysu dhexgeliyey saasuu ilahay ku shabahay subxaanahu wa tacaala waid qaala muusa liqowmihi yaa qowm wadkur xusba nebi maxamedu id markii qaala muusa nabi muuse uu ku yidhi liqowmihi qoladiisii reer banu israa'iil yaa qowmii qiradaas abu camarka aniga qoladaan ka dhasho reer banu israa'iilow lima tu'duunanii maxaad ii dhibaysaan adinku aniga bal waxa aad ii qaxraysan ii dhibaysaan maxay tahay dantiinaan ka shaqeeyaa inaad janno gashaan oo naarta jahannamo gelin yaan ka shaqeeyaaye maxaad ii dhibaysaan markii uu nabi muuse ku lahaa qoladii reer banu israa'iil sida aad maanta ku leedahay nebi maxamedow qoladan quraysh leedaad ka dhalatay iyo carabta oo dhan bal marka hore aad ku leedaho kale wey ma wax yani nebi muuse lagu dhibaa ilahay keliga ila caabuda aad jannada ila gashaane ma wax nebi maxamed lagu dhibaa mataqaana ilahay ila caabuda carabi jannada aad ila gashaane bal fiiri meesha lima tu'duunana maxaad ii dhibaysaan uu yidhi nabi muuse qoladiisii walxaal qad xaqiiqe taclamuuna reer banu israa'iil waad og tihiin annii anigu rasuulullaahi mursalullah ilaahay midkuu soo diray inaan ahay ilaykum adig idin soo diray
aada ogtihiin adig reer banu israa'iil ba maxaad ii dhibaysaan dhibabka waaweyn u geysteenoo yani mataqaana maaragtay iskaba dhaafa saamiri iyo dibigii uu caabusiye iyo dhibaatooyin fara badan ay geysteen iyo iskaba dhaafe yani mataqaana suurat laxsaab markaan joognay akhirkeedii ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu llah mima qaaluu waa ku samr yani nabi kastaahi waa saaxibulxushma wey qamiiskiisa iyo duubkiisa iyo ku raran yahay markaase waxay yidhaahdeen muuse wuxuu yani isla gambalo isla duubayaa sheeluu qabaa sheelo sheela anagu nirah yani mataqaana xaniinyaha mataqaana xuub inta go-a mataqaana yani mataqaana maaragtay xidmuhu maqaarka uu yani xaniinyaha gala wey marka waxay yidhahdeen sheeluu qabaa fiiri maalinkii dambe roob da-ay oo barwaaqaa meel xareed ah yuu inta ka dhex baxay shanqadhii oo dhan oo dharkii iska baxshay yuu ku mayranaya dharkiina muxuu saaray dhagax sallaxahuu saaray mar alla markuu qubayskii dhammaystay oo raba inuu qaato dhagaxiibaa wuxuu la cararay alaabtiisii la orday waa ka daba orday war dhagaxuu ii reeb mataqaana dharkay waa ordayaa dhagaxiina ilaah baa wada ilaah muxuu doonay marka inuu tuso daalimiinta reer banu israa'iil inaan nabi muuse sheele qabin da dhibkay geysanayaan fiir meesha iyada taa weeyaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala yani dhibka ay nebi maxamed ku hayaan reer carabi ku hayso markaas yaa lagu shabahayaa dhibka ay reer banu israa'iil nabi muuse ku hayeen calayhi salaam maxamed waa sixirow iyo waxaa akrinayaa mataqaanaa waxa loo soo dejiye maaha iyo mataqana waxyaalaha ay ku hadlayaan oo dhan wey waxaa laga hadlayaa falamaa markii zaaquu ay leexdeen reer banu israa'iil oo uu kari waayey nabi muuse azaaqa allaahu ilaahayna waa leexiyey quluubahum qalbiyaalkoodii waa leexiyey wallaahu ilaahayna laa yahdi ma hanuuniyo alqowma alfaasiqiin qola faasiqiina oo ilaahay iyo mataqana rusushiisa mataqaana ka xiriir furtay oo ibliis iyo duriyadiisiis raacay ilaahay ma hanuuninayo subxaanahu wa tacaala subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar wala xawla walaa quwata illa billah